سنتين mahadsantihiin waxaan rabay qodobka 13aad farqadiisa saddexaad baa waxay leedahay soo ridida ilmaha soo ridid bay ka hadlaysaa ilmood marka taas sanataro iyo xildhibaano badan baa ka hadlay ku noqon maayo waxa jirta ubad la dhalo oo la tuuro ubadka la tuuro la dhalo ee la tuuro waxa la rabaa dee iyaga laftooda meel lagu ogaado oo dastuurku xaqooda uu ilaaliyo marka waxaan oran lahaa caruurta la dhalay ee la tuuray inta kartoon yar lagu soo rido ama bacay lagu soo duwa meelaha la dhiga xaafadaha dabadeed dad baa hela waxa la rabaa marka dadkaas caruurta yar la tuuray in waxaan qabaa in dawladdu ay mas'uuliyadiisa qaado cidii dhashay ee tuurtayna haddii la helo dee la maxkamadeeyo ay maxkamaddu marka wax laga qabto haddii kale waxay noqonaysaa wax iska fawda ah oo maarta waagii dawladdiisa aad darajistay waxa kacaanka la oran jiro wala urur jiray dawladda urur jirtay arrinta kale aan rabaa inaan la wadaago waxa weeye oo guddoonka ay isla gaadheen in berri laga bilaabo waxaad moodaa in lagu jiitamayo dastuurkii rabnaana ina hayso marka sida xeer hoosaadka labada aqalba ku qoran 9 subaxnimo inuu shaqadu bilaabato weeye marka berri laga bilaabo haddii ilaahay idhaa berri maahay arbacada laga bilaabo haddii ilaahay idhaa 9 subaxnimo in halka la isugu yimaado guddoonku 10 soo fadhiisto dabeedna doodii ay saa ku bilaabato go-aanka la gaadhay taa weeye xildhibaankii ama senatarkii isqora maanta qoran ee ka taga waa laga soconaya xaq ma aha in dadna fadhiyo ilaa 4 galabnimo uu sugo inuu doodo xildhibaanada iyo senataradina ay baxaanoo ay iska tagaan dabeedna yidhahaan berri baanu doodaynaa taas waa taasna intaas baan odhan lahaa aad baad mahadsantihin